like iyo subscribe si aad u hesho video kasta oo cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaasha ku xiran kanaalkeenan Moogtahay. Waxaan maanta ku soo qaadanaynaa xog muhiim ah oo ku saabsan dalka Rwanda. Waxaa lagu magacaabaa Jamhuuriyadda Rwanda, waa dawlad ku taalla bariga qaaradda Afrika. Caasimadeeda ayaa lagu magacaabaa Kigali. Tirada dadka dalkaas ayaa lagu qiyaasaa 12 milyan, waxaana badka dalku yahay 26,000 oo kiiloomitir oo square. magaalada Kigali oo caasimada ayaa lagu tilmaamaa magaalada ugu weyn dalka iyo xarunta dhaqaale ee ugu weyn iyo dhaqan ee Rwanda. waxay ka mid tahay meelaha dhul ahaan ugu sarreeya dunida, iyadoona meesha ugu hooseysa Rwanda dhererkeeda lagu qiyaasay 950 ay ka sarreyso badda. luqadda rasmiga ee laga hadlo Rwanda waa luqadda Ingiriiska, Faransiiska, Kenya Rwandiiska iyo Swahiliga. dalkani wuxuu ka mid yahay dalalka badkiisu yar yahay ee dad badani ku nool yihiin, mana laha wax xeeba, iyadoona kheyraadka dalkaasi yahay mid aad u yar. sanadkii 1990 dagaalkii sokeeye ee wadankaasi ka dhacay oo ahaa xasuuq wadareed waxa uu sababay dilka wax ka badan 1 milyan oo qof. laakiin waqti xaadirkan wadanka ayaa dhaqaalihiisu fiican yahay, waxaana lagu tilmaamaa wadamada uu aad u korayo dhaqaalahoodu ee qaaradda Afrika. arrinta la yaab kale ayaa ah marka 3 meelood loo qaybiyo wadankan goliisa baarlamaanka in 2 meelood ay u badan yihiin dumar. sanadii 2007 Rwanda ayaa noqotay dawladdii ugu horeysay ee mamnuucday bacaha balastiga ah guud ahaan dunida. intii u dhaxaysay 2006 ilaa 2011 wadankaasi wuxuu ku guuleystay inuu dhibo saboolnimada in ka badan 1 milyan oo qof. sanawaadkii ugu dambeeyay Rwanda waxay noqotay wadamada horumarka weyn ka sameeyay meelo badan ee ku yaala qaaradda Afrika. dhulka seeraha ah ayaa lagu qiyaasaa 9% wadankaas, waxaana ugu caansan beeraha fulkaanaha, taasoo ah meelaha ugu caansan dalxiis ahaan, waxayna hoy u tahay daanyeerka gorilla buureedka kaasoo ku dhow inuu ka dabargo'o guud ahaan caalamka. beeraha iyo harooyinka ayaa ka dhigay inay ku noolaadaan xayawaano kala duwan wadankaasi.